يا ريحي يا ريحي بيدن يا ريحي يا ريحي يا ريحي يا ريحي يا ريح بي يا ريح يا ريح بي يا ريح حال الريحي وحال الريح ما كان به وحال الريح نص شيء وحال الريح ما بقرنني وحال الريح نص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكان نلا سoctaan waa channelka Cagacad Production iyo Facebook page kan Khulada Soomaali fadlan page kaas dad ku cusub tahay like noo saar follow noo soo YouTube kan sidoo kale subscribe noo saar maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij social media qabsaday maalmahaani ku saabsan ereygan يا ريح بي يا ريح يا ريح يا ريحي يا ريحي meel walba comment walba يا ريحي siiba TikTok ha ugu badnaato hadaad gasho waxa arkaysaa ugu yaraan 300 400 marka fiiris commentiga يا ريحي ku soo qoreen يا ريحي ma la garanayo qofku yahay ma wax la riixay miya ma xal riixay ya dadka qaar waxay leeyihiin keenay bal ereygaas yaa rabnaa inaan isla aragno qofku uu ku yimid meeshu ku yimid iyo waxa loo jeedo asra daawano sharaxaada yariiska oo halkaan kaaga muuqato insha Allah asra daawano marka meesha laga keenay yaa riixay waxaan iga dabageenayaa yaa riixay b oo uu dambeyn social media dadka isticmaalo commentiyashooda zaad u qabsatay marka qofkaan u jeedin waa fanaan lagu magacaabo Guna waana qaniis heesuu qaaday waxa ku jirtay Who Bush B magaciisa oo ah B magaciisa waa Guna naanistiisa waa B yaa riixay B oo la jeedo yaa u galmooday B marka Soomaalideena waxaa soo galiyay wiil dhalinyaro ah eriga soo galiyay marka ma fiicna inaan isticmaalno yaa riixay B waa xawaay erey dhaqan ma ahan team yaa riixay B micnihiisa ma fahansanidin laakiin xaqiiqda hadda ogaado qof oo commentiga oo ku soo qor kara ma lahan hadda kadib yaa riixay B iyo wax la mid ah ninkaan oo jeedin fanaan waa Guna lagu magacaabo qaniis waa Who Bush B naanistiisna waa B sida soo wada daawateen ereygaasi waxa laga keenay nin asal ahaantiisa qaniis ahay haddana qaniis magaciisa sida soo maqashay Guna waana qaniis magaca xarafkan ba naanistiisa waa marka hebel yaa riixay waa magacaasi baada oo soo raacsiinaan hebel riixay hebel kale taamala loo jeedaa ma fahmino marka Soomaalideena waxa waaye wixii meel ku soo arkaan hore ka keenaya social media magacaan waxa social media soo galiyay wiil Soomaali ah oo dadka ka codsanayo inuu uu dhaho qof walba commentigiisa ha lagu soo qoro yaa riixay asna muuqaalkiisa asla daawano marka asigoo dadka Soomaalida ka codsanayo in comment walba loogu soo qoro yaa riixay asla daawano marka wax yar daawasho wacan aad meel walba ku soo qortaan yaa riixay muhiimaduna ayna ahayn inaad qofka u sharaxdaan waxa laga wada waxaas qofku ha yaabo ha isiraado waxan maxay ahaayeen soo wada daabateen wiilkaas dhalinyarada ah social media weyn qabo sheekha Umaleen ana dhahay qof garweyn sheekha Umaleen marka aad u maasiti marka Soomaalida muuqaalka daawanaysaan walaalayaal yaa riixay ha laga ilaaliyo yaa riixay erey qaniis waay ha laga ilaaliyo marka insha Allah aad u maasiti marka muuqaalka xiga waa Cagacad sidaas iyo nabadgelyo